وعن أو نكسن دمان تيمبا ومركلة يا برنامج قار haddii aan nahay Soomaali waxaan nahay dad muslimiin ah boqolkiiba boqol sunniyiin shaafiiciyiin ah isku deegaan isku af isku dad ah Soomaalidu waxa deegaan u ah geeska Afrika waxay haystaan diinta Islaamka Soomaalidu waa dad isku af ah oo ku hadla afka Soomaaliga haddaba su'aasha isweydiintu mudan waxay tahay haddii ay Soomaalidu meel walba ka siman yihiin maxay tahay fikradda federaaleynta ee Soomaalida lagu dhaqayo hadda su'aalaha isweydiintu mudan waxaa ka mid ah yaa lagu dhaqaa federaal waxaan ogsoonahay in federaalku ay tahay nidaam lagu heshiiyey taa oo ay ku heshiiyeen ummado kala duwan kuwa oo ku heshiinaya hab maamul mid ah kuwa oo isku keentay maamul balse ku kala tagsan dhaqamada iyo waxyaabaha la mid ah Soomaaliya markii loo eego waa meel ka duwan sidaasi Soomaalidu waa dad wax walba wadaaga hadda dalka waxaa ka dhisan nidaamyo maamul goboleedyada Jubbaland Hirshabeelle Koonfur Galbeed Galmudug Puntland iyo maamulka gooni isku taagga dalbaday ee Soomaaliland ayaa hadda dalka ka jira dhammaan maamuladan ayaa kuwa gaarkood u taagan shisheeyaha gumeysidoonka ayaa si gaar ula macaamiltama dawlad goboleedyada danaha ay ka yeeshaan dawladda dhexe ee Soomaaliya ayaa ku guuldareysatay hanashada maamul goboleedyadan iyo in ay la yeelato macaamil wanaagsan hadda dalka waxaa loo kala baxsan yahay mucaarad iyo muxaafid intaba dawladda dhexe ee Muqdisho ka dhisan waxay si gaara xulafo ula tahay maamul goboleedyada Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle waxaana la isku yiraahdaa madaxweynayaashooda ilmo garan beddelkeed xukuumaddu waxay si buuxda u beerdarashay wada shaqayntii aan lahayd maamul goboleedyada Jubbaland Puntland iyo Galmudug waxaana bilaabmay loolan u dhaxeeya xukuumadda iyo weliba maamul goboleedyada mucaaradka halkaas waxaa jaanis ka hunguriyey xukuumadaha cadawga shisheeye ee dalka ku ah weerarka hadda waxaa waqti doorasho galay maamulka Galmudug oo hadda waqti doorasho ku jira ayaa waxaa ku hardamaya dhinacyada iska soo horjeeda dagalka Soomaaliyeed doorashooyinkooda doolar lagu gado balaya daraantaas dowladnimadu ay tahay qabil darajo lagu helo gobolada dalkeena degmo waliba ka arkay madaxweyne doortaan iyadoo hardanka doorasho lagu bixinayo lacag balaayiin ah haddana hadda intaan ku guda jira diyaaradda dukumiintigan xogaha iga soo gaaray dalaadka magaalada caasimadda ee Muqdisho gaar ahaan degmada Kaxda ayaa sheegayaan in dad gaaraya ku dhawaad 3 qofood ay gaajo ugu geeriyoodeen mid ka mid ah xeryaha baraka ee halka ku yaala intaan ku guda jiray xaaladda baaritaan iyo diyaarinta dukumiintigan gaaban waxaan bulshada Soomaaliyeed cod dheer u sheegayaa in dhibaatada faqri iyo midda kale ee dalka ka jirta ay sabab u tahay ka fakirid la'aanta siyaasiyiinta caadaqaatayaasha ah ee bulshadooda sida cadowtinimada uu kor shaqaysanaya waqtigooda markuu dhammaadana ka shaqo tagaya haddaba alla uru bixi bulshadan dhibaataysan labaad aan bulshada u dirayo ayaa ah inay diidaan nidaamka federaaleynta iyo inay ka soo horjeestaan gebi ahaanba inay u saxbatumaan madaxweynayaasha isku beddelaya ismaamul goboleedyada iyo dowladda dhexe intaba allah subxaanahu wa tacaala u toobad keenaan
bixiya baadigoob iyo wakhti badan sidii aad u soo cesho lahaydeen sharaftiinna iyo ku dhaqanka shareecada islaamka taasay ku jirtaa nidaamka iyo weliba toosnaantiinnii liibaanta adduunyo iyo midda aakhiro haddii cudur madaashari dawadiisa loo helo dinteenu siday tidhi hadigii daraad how culimadu daliishay ugamansadii shaalay markaanu raacno kulligeen damboone rabbiyowna daba habo dadka ku dilaasho dadka baxay baktiyo midnimada doono dadaaliyo waxtabaan badan oo ila doorta mudaniyo rabo rabowdogsin dheer qaba ila doorta mudaniyo rabo rabudogsi khayr qaba